Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu tacaala halkan waxaan ku soo qaadanaynaa halkudhigyadii iyo odhaahyadii Gandhi. Iimaanku ma aha wax la fahmoon ee waa heer aad ku kabacsid. Xitaa haddaa liiga tiro badan yahay, xaqiiqadu xaqiiqun bay ahaanaysaa. Ma jiro derbi aanu jebin karin jacaylku. Dhulku waxa wax u soo saaraa haqab-tirista baahida dadka ee uma soo saara damaca cid gaar ay leedahay. U noolow sidii qof biri dhimanaya, waxna u baro qof weligiiba waaraya. Qaladku ma noqdo xaq si kastoo uu baahaba. Xaqiiqaduna gef ma noqoto xitaa hadduuna qof keliya arkayn. Keliya waxaan eedaa qaybaha wanaagsan ee qofka, maadaama laftaydu aana ceeba ka madhnayn. Dadkana ceebahooda ma dabagalo. Saboolnimadu hagardaamada nooca ugu xun wayna hantiilayaashu duldhigaan sida faqiiradu noloshu u dhandhanto. Awooddu kama timaado xoogga jidhka ee waxay ka timaadaa rabitaan aanan la maquubin karin. Ma jiro jidh nabadda loo maro ee nabaddu yadaaba jidhkiiya. Dadku waxay u shiideen dhagaxaan, aniguna intaan urursadayba ayaan guri ka dhistay. Fulayu ma awoodo inuu jacaylkiisa cabirto, waana dabci ka mid ah dabciyada geesinimada. Mararka qaar cidduu Ilaahay darajo siinayo waxa uu mariyaa imtixaan adag. Xilliga ducaysiga inaad ku ducaysatid waxaa habboon inaad ku ducaysatid qalbi bilaa hadal ah, halkaad ku ducaysan lahayd hadal bilaa qalbiga. Waxaad samaysa ayaa hadhayo la dheebsanayaa ee ma aha waxa qortay iyo waxaad tiri. Qadarinta nafeena wayno cidna inaga qaadi kari mayso haddii aanan nafeena siinin. Noloshaydii waa fariintaydii. Cadhadiyo diiqadu cadowga fahanka saxan. Kala aragti ku duwanaashadu inaanu cadaawad dhalin. Hadduu dhali lahaana aniga iyo xaaskeyda ayaan isu noqonay cadowga isugu xun. Dhicitaan kastaba ma aha gabagabadii. Roobka soo diitaankuba waa dhicitaan qurxoon. Si dhaba uma dhaagaysid qofka noloshaaga ku qaaliya ilaa ayaad weydid. Awooddu ma aha xaqa ayaa awooda. Waxay keliya noloshu kaaga baahan tahay sida ay kugu wacnaato waydidiilo iyo geesinimo iyo rajo. Gefka hayba markiiba si badheedha u qiro. Dadku way arkayaan inaad khaldan tahay, balse anshax suubanaantahay ayay qadarinayaane. Waxa keliya jidhka ruuxa bini'aadanka dilaa waa warwarka. Ruuxa Ilaahay iimaan xooggan ku qaba waa inuu kaba xishoodaa inuu warwaro wax kastaba waqtigooda gaadhaane. Ma jiro qof u waaraya ee baro sidii aad keliya u noolaan lahayd. Qadarinta lama dalbadee waa la kasbadaa. Xeerka nolosha wanaagsan waa samirka, raalli ahaanshaha iyo qanaacada. Inaad qalbi jilicsan lahaatay xilli adduunku wala adkaaday maaha taal darro ee waa geesinimo. Way wanaagsantahay inaad baratid macnaha waxbixinta, balse waxa ka wanaagsan inaad wax bixisid. Inuu ninku gabadh jeclaado waa fidmo ku abuuran. Inuu u ilaaliyaa u dhowraana waa raganimo. Si aad niyadaada ugu raaxaysatid ismowreensi jaahiliinta. Saamaxna haddii aad ilowdo. Farxaddaadu waxay gaadhsiisan tahay heerka ay waxbixintaadu gaadhsiisan tahay ee ma aha heerka ay wax kasbashadaadu gaadhsiisan tahay. Iska jir inaad dadka niyadda ka dishid. Ma aha lafa ka maya. Runlayu ma dhaarto, ka isu hubaana ma cudur daarto, ka daacadana ma hungoobo, ka deeqsiyana ma mana sheegto, ka wax jecelna kama caajiso. Xaq kuma laha inuu ku canaanto qof aanu ku jeclaynin. Hal xidhaalaha aan xalleyn kari waaye waa uu qof aanu duleynta walaalkii. Qofna kama yeelayo inuu caga wasakhaysan uu ku soo galo qalbigayga. Toddobada arrin ee dadka halleeya waa hanti bilaa shaqo ah, raaxo bilaa damiira ah, aqoon bilaa dannimo ah, dhaqaale bilaa anshaxa, diin bilaa horida, iyo siyaasad bilaa midba aqoon bilaa aadannimo ah. Intaasaan kusoo gabagabeynaynaa odhaahyadii Gandhi.